degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa markii ugu horeysay waxaa laga hirgeliyay jaamacad ay dhiganayaan ardayda iyagu dhameeya dugsiyada sare ee degmadaasi waxaana arrinkaasi aad u soo dhaweeyay bulshada ku dhaqan degmada Walaweyn. Mahad Axmed Cali ayaa warbixin arrinka ku aadan Walaweyn inooga soo diray. jaamacadda caalamiga ah ee Jubba oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa noqotay jaamacaddii ugu horeysay ee xarun ka furata degmada Walaweyn. maraan booday xarunta jaamacaddani ayaan waxaan kula kulmay Professor Sido Yarow Kalba oo ah gudoomiyaha jaamacadda Jubba farceeda Walaweyn wuxuuna TV-ga RTN kaga warbixiyay fakaltiyada jaamacadda ay bixiso iyo tirada ardayda dhigata jaamacaddani. waxaan joognaa xarunta jaamacadda Jubba kampaskeeda Walaweyn. إن شاء الله وحنا مهد وبلارن له مرسو هريسا تلفزيون كا RTN وبرنامج جدينا إن معركتي ميل والجرسي قرشي إستغن آتيات أيوم معركتي ومعركتي هاي برنامج كا ومعركتي نمانتا نبصو بعض التلفزيون كا يوريا وجامين هاي برنامج أريمهاسي. أنت أسمع كان في جوجو halkan waa xarunta jaamacadda Jubba kampaskeeda Walaweyn. markii aan aragnay dhibaatooyinka iyo baahida loo qabo jaamacad waayo degmada waa degmo aad u ballaaran caasimadda Muqdisho waxay u jirtaa 90 kilomitir waxaa jira degmooyin ama gobollo aad u fog oo jaamacada leh marka baahidii markaan aragnay waxaan go'aansanay aan ma aragtay hawl iyo ma aragtay maskax fara badan aan gelinay in degmada ay yeelato jaamacad. tirada ardayda dhigata ilaa iyada aan diiwaan gelinay waa 22 arday ayaan ma aragtay diiwaan gelinay. jaamacaddu waxay leedahay fakaltiyaal fara badan waxa ka mid ah education waxa ka mid ah ma aragtay caafimaad waxa ka mid ah beeraha waxa ka mid ah dhaqaalaha waxa ka mid ah ma aragtay computer science ayaa ka mid ah waxay kaloo leedahay koorsooyin gaagaaban ay leedahay. inta aan ku guda jiray booqashada jaamacadda Jubba ayaan sidoo kale waxaan la kulmay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Jubba farceeda degmada Walaweyn. bahda saxaafadda oo ugu horeeyo maasheekeeye iyo qaybtan RTN jaamacadda Jubba markii la bilaabo waxaan ahayn dadkii ugu horeeyay ee asaaskeeda ahaa faculty-ga aan ka barto waa education isla markaa qaybta history and geography may aad in faraxsana barashada cilmigan hadda oo qaadooyn may waa qaybta education-ka maynu door bidnay waxyaabo badan oo uu hiriyay aawadiina door bidnay oo macna education ma barano sidoo kale tan may faculty aan qaadanay ama qaybtan uu qaado waa biology iyo chemistry qaadaday wana aadan faraxsan macallimiinta biyaan kuma hadnagaane. bismillah aniga magacayga ah Deeqa Axmed Cilmi waxna ka barto jaamacadda Jubba International University. marka ugu horeysay waxaan u hambalyeeynayaa macallimiintayda qiimaha iyo qaayaha badan iyo maamulahayga oo isku taxloojiyaan in ay jaamacad ka furaan degmadeena qaaliga ah ee degmada Walaweyn oo ay tahayna horumarkii ugu weynaay ama ugu horeeyay ay gaaraan degmada Walaweyn. waxaan bartaa aniga haddii aan kolley education maadada education-ka dhinaca xisaab iyo physics-ka waxaan ka baranaa faculty-ga education-ka. faculty-ga aan dhigto awalan waa education particularly gaar ahaan biochemistry. waxaan bartaa faculty of education gaar ahaan physics and math. inta badan ardayda ka qalan jibisa dugsiyada sare ee degmada Walaweyn ayaa waxa ay waxbarashada jaamacadda u doonan jireen magaalada Muqdisho oo 90 kilomitir u jirta degmada Walaweyn balse jaamacadda caalamiga ah ee Jubba ayaa noqotay jaamacaddii ugu horeysay ee xarun ka furata degmada Walaweyn ee taariikhda taasi oo dabooshay baahiyihii jaamacadeed ee ka jiray degmada Walaweyn. Mahad Axmed Cali TV-ga RTN degmada Walaweyn gobolka Shabeellaha Hoose.